maalmo badan oo adag baa soo maray dadka Somaliland laakiin samriya adkaysi bay kaga soo doogeen xalayna waxay ahayd habeen kale oo dadka reer Hargeysa masiibo ay ku absatay dagaalahoodii iyo xuduntii magaaladooda dabaabiyay laakiin dad samir badan oo markay tan oo kala dhacdo iskarabsada walaala waxa halkan ka dhacay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ilaa halka ugu hooseeya xalay looma kala hadhin nin kasta dadaal kasta oo suuragal ah bixin karaya ayuu bixiyay madaxweynaha qarankuna wuxuu amray in dhammaan laamaha dawladda oo dhami ay ka qayb qaataan sababta bixinta iyo dabka in lagu xadido in kooban oo magaalada dhan aanu gaadhin xaqiiq waxa ah in dadaalkii xalay la bixiyay uu badbaadiyay nafaf fara badan iyo magaalada inteeda kalaba waxaan doonayaa halkan inaan aad iyo aad ilaahay baa mahad leh inaan u mahadnaqo ciidamada naftooda hurayaasha ee debdemiska ciidamada qalabka sida militariga ciidamada bilayska asluubta badda socdaalka oo xalay aan ilaa maanta aanu kala tegin hawsha halkan taala waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ururka booyadleyda oo iyaguna runtii nafhur sameeyey way yartay baan u malinayaa booyadda ugu yari 3 jeer ayay biyaha soo bartay dadaalka ay bixinayeen ayaa inoo suuro geliyey inaynu wax badan runtii iyo nafaf fara badan inaynu badbaadino waxaanu qalbiga ugu adkaynayaa dadkeena inaynu dhisan doono Hargeysa insha Allahu ta'ala ilaahi maalkeena siiyay ee masiibadan keenay inuu kuwii dhibaatadu soo gaadhay ilaahay meel kale ka siin doono qarankooduna inaanu ka hadhin oo wax kastoo suuragal ah la samayn doono sidoo kale suuqeena waa dhisanaynaa adduunkana waxaan tusaynaa inaynu nahay ummad markay tan oo kale dhacdo ka soo kabata oo ka soo kacda waxaa la doonayaa inaan loo noqon halkii shalay taalay suuqyada marka la hagaajiyo wadooyinka marka la saaro ninka wadada dib ugu soo noqdaa qarankan dib weyn buu ka gelayaa sharcigana wuu wajihi doonaa waxaynu yeelaynaa wax kastoo suuragal ah oo aynu muddo yaroo kooban adduunka ku tusi karno inuu nahay dad wax istara oo waxa ka baabi'ay ka xumaada dib u dhista Hargeysa marbay sida tan oo kale maanta ka dhacday gebigeedaba ka wada dhacday oo wada qiiqday dad kale baa u soo halgamay u soo dagaalamay iyadoo duusan qabsaday dib u dhistay quruxda ay maanta leedahay u yeelay xalay tan dhacdayna waa ka soo kabanayna niyadda inta lagu qaboojisto qaran baynu nahay wada arkaysaan madaxweyne ku xigeen goli wasiirada xildhibaanadii golaha deegaanka ciidan taliyaashii ciidamada cid milooma kala maqnaa marka waa dadaal qarankii oo dhan ayaa lagu bixinayaa marka insha Allahu ta'ala waynu ka soo kaban halka ay taalo insha Allahu ta'ala ilaahay waynu weydiisanaynaa ilaahay masiibada keenay inuu inaga dulqaado dadkeena maaragtay sida gaarka dhibto taabatay ee guryahoodii iyo maalkoodii baabay kuwaana insha Allahu ta'ala ilaahay waanu baryay ilaahay maaragtay siiyo maanta qofkii ugu horeeyay 1 milyan oo dollar ku baaqayna noqoto anigu ma jeclayn 1 milyan suuqa halkan wixii ku burburay waxba kama tarayso waxaan ka filayay ugu yaraan 3 guddi inaad saartaan maanta ka filayay waxaan ka filayay inaad saarto guddiga baarista cidda mas'uuliyadda lahayd inaad saarto guddi qarana oo hayn hay'adii baaristo kaliya taan hayn oo xildhibaan leh oo culimo leh oo wax garad leh oo ganacsato leh oo salaadiin leh oo dhalinyaro leh inaad saarto si mas'uuliyadda cid loo saaro waxaan filayay guddiga diiwaangelinta hantida luntay ee gubatay waa imisa hantida marka la yaqaan qarankeega la qaadama waa imisa hantidaas in rag dhaqaalayahana oo nin khadar la yiraahdo ka mid yihiin oo wax garanaya
fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun rag baa qiimayn karaya markay halkaa istaagaan kuwaa in la weyddiiyood guddigaa saarto oo la diiwaangeliyana kuwaana waan kaa eegayna madaxweyne waxaa kaloo kaa eegaya mudane madaxweyne inaad saarto guddigii qaadhaan ururinta marka labadaasiba xogtooda soo saaraan oon la mid ahayn guddigii abaaraha oo ah waru banneeya oo aan ahayn guddi dadkaasi way gaajoonayaan shalay tijaar bay ahaayeen dadkaasi waxay doonayaan cid sidii wax loogu ururin lahaa iyo qaabkii loo samayn lahaa dadkaasi ayaannu doonaynaa waxaa la doonayaa in laga fikiro nabadgelyada maa laynagu soo duulay haddii xaalad security ama nabadgelyo dalku dareemo ma xarunta madaxtooyada iyo xarunta baarlamaanka iyo xarunta maxaa la yidhahdaa wasiirrada la sugaya amnigooga miyayna duulimaad hayn ma duulimaad ka weyn baa jira ma masiibo ka weyn baa jirta wax maanta hargeysa ka dhacay oo ina taabtay dhaqaalihii ciidanku taabanaya wuxuu taabanayaa maxaa la yidhahdaa xildhibaanka wuxuu taabanayaa hooyadii ugu hoosaysay ka ugu sarreeyuu taabanaya maa kuwaa mas-uuliyadda ka saarran in la ilaaliyo nabadgelyadooda maxaa isku soo beegbeega xaaladihii waad ogtihiin qoladiina nabadgelyadu waynu isognahay xaaladihii maalintii dhaweytoole ee hargeysa rag baa ka baxay arrimaa jiray waxbaa jiray waar wixii jiray arrinkan maxaa kula siiyey miyayna baadhis u baahnayn arrintaas ma arrin eeyar layska dhaafi karaa ma eeyar waayar baa gubey layska odhan karaa xogtaannu haynaa waxay noo sheegaysaa 7 cisho ugu dambeeyey inuu bacadlahan kolba meel ka qiiqayey uu kolba meel ka gubanayey uu kolba meel ka gubay laakiin toddobaadkii hore sidaa ma ahayn toddobaadkii ka sii horreeyey sidaa ma ahayn kii ka sii horreeyeyna sidaa ma ahayn maxaa xaaladaas ku soo beegbeegay waa in la isweyddiiyo meel la fadhiisto madaxweyne iskuu kaa yeedhoo na weyddiiyo wax noogu yeedhi intaanad milyanka dollar ku baaqin noo yeedh dadka weyddiy hay-adihii dabageli waxaan halkaan uga mahadnaqayaa booyadaha ay shacabku biyaha ku dhaansadaan baan lambar 1 shacabka booyadaha le waanu mahadnaqayaa noolaada dadkiinna magaalada intaas inay gubatayna intii kale ay gubato ayaad ka hor istaagteen waxaanu mahadnaqayaa ciidanka dabdamiska naftood horayaal weeye waa laydin abaal marin doonaa waa naftood horayaal weeye waxaanu u mahadnaqayaa ciidamada kala duwan ee qaranka oo ugu horreeya ciidanka milatarigu shacabkaanu mahadnaqayaa walaalayaal dadkeenna weeg dawlad deegaanka soomaalida oo xalay markaan nidhi war noo soo gurmada walaalahayana waanu mahadnaqaynaa war waxaan idiin sheegayaa dadkaasi gurmad degdegay rabaan gurmadka degdegee maantay rabaan waxa weeye carruurtoodii way gaajoonaysaa jaarka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi man baata shabcaanan wallaahi laa yuumin buu 3 jeer rasuulku yidhi man baata shabcaanan wajaara jaa'icuhu ilaa jambihi ninka intuu dherga seexanaya ayaa isagoo jaarkiisu gaajoonayo ilaahay muu rumayn buu rasuulku yidhi waa bil rabadaan quudin bay doonayso marka horeba saayida abaar bayna hayso inaan ka soo kabannin abaar bayna haysay waryaada sharci kasta iyo siyaasad kasta iyo meherad kasta oo dulmi lagu dhiso taasaa u dambaynaysaa haddii shalay hargeysa weyrasiyaad barre u dumiyey maanta bimaa kasabad aydiyana soo maha waxay ku duntay hargeysa ee dhaqaalayna ku weynay waar dulmigaas halkan mar kale ayuu dadku ka qarxay isaad wada arkaysaan goobtii aan idinka arkaynay ee aan idiin sheegay ee dadku uu ka bilaabmay guud ahaanba way baaba'day daqiiqada kadib way baaba'day goobtan sababtay u baaba'daya waxay tahay awoodda xawliga ee uu qofku ismihii ayaa isaguna aad arkaysaan oo goobtani isaguna guud ahaanba shuf beelay dadka ayaad arkaysaan goobta uu ku tiirsan ayay dadka ugu tusmayeen qof kastaaba wuxuu qiimayn leeyahay xaaladdu sida ay tahay iyo sida ay noqon doonto isku beddelayso kolba meel ayuu dadku ka kacaya goob walba qofku ku kaco waxa ay noqonaysaa goob baaba'day oo sida hantida taale oo dhan ay ku dhamaatay